soo jiray muddo aan ka yarayn 20 sannadood. anigu xisbiga u cid markaan diiwaan geliyey commissioner baan ahaa, registration commissionka ayaan ku jiray, xogayaha ayaan ahaa, guddoomiyaha waxaan oo ahaa nin guun la odhan jiray. 1999 ayaan qiyaasaya inay ahayd. From that day Faysal Cali Waraabe ayaa hor fadhiyay oo guddoomiye waxaa xisbiga u cid lagu bixiyaa lacag aad u fara badan oo hantida ummadda ee taxpayerska ah iyo taanooyinka laga ururiyo islaamaha tamaandhada laga keeno yay qaataan bil kasta iyadoo cash. qarankaasi iyo hantida xisbiga la siinayaa macnaheedu waxa weeye in xisbigu jiro oo uu joogo oo uu jiro oo uu midho dhal yeesho. hadduu xisbigu madhalays noqdo sabab loogu sii bixiyaa hantida ummaddu leedahay ma aha oo ay qaadanayaan 12 sannadood. 3 jeer ayay tiraba ninka guddoomiyihii is-sharaxay. 3 jeerba waa ku guulaystay, waa ku guuldaraystay, welina waa hortaagay. waxaana rabaa in xisbi lagu tilmaamo ummadda shilinkeeda ay qaadato. taa waxaan leeyahay saaxiib xisbigu waa kaa